next page ama qaybta kale waxa weeyaan inaan ka hadlo hadda waxaan ka hadalnay so far in haddii lagu siiyo xog oo qualitative number ahayn loo bedeli karo maxay qaab table ah kadibna laga dhigi karo qaab maxay chart ah kadibna aan go'aan gaari karno maxaan dhigi karno xogtaas waxayna tusinaysaa in xag u badan tahay xag u yar tahay hadda waxaa inoo hor markaa inaan galno haddii ay xogta xog number ah aan qualitative ahayn sidee loo dhaqmaa ama sidee loogu muujin karaa maxay qaab table ah waxaan rabnaa fahamno xogta markay quantitative tahay ee number tahay sidii hore kale looga dhigi karaa qaab table ah iyo qaab graph ah chart ah kadibna loo sharixi karaa kadibna maxay loo gaaraa go'aan decision loo gaaraa that's the point maanta okay xagga waxaa ka muuqata saa aragtaanba in la organize gareyn karo markay tahay quantitative markay tahay numeric data number yani variable oo number ah in la hagaajin karo maxay kadib loo sameyn karo frequency distribution table ereygan distributionka waxaan dhihi jiray carabigiisa waa towsiic ama qaybin ereygan waxaa qaybin wixii laga qaybiyo ama in la kala hagaajiyo okay so marka sidee marka xogta markay quantitative tahay loogu sameyn karaa table kadibna loogu sameyn karaa maxay chart that's the point okay fine ugu hore marka inta aadan xogta ka dhigin table waxaa u baahan saddex step inaan marno ayaa u baahannahay terminology ahaan waxaan dhihi karnaa xogta markii laga dhigaayo table waxay martaa process ay martaa waxaa u naqaanaa that process waxaa u naqaanaa converting data from one group to group xogta fiiri مثلا suppose waxaa haystaa daato xog ay haystaa xogtaan haysto waa 2 waa 8 waa 6 waa 2 kale 4 kale 8 9 7 8 2 4 8 10 14 16 10 kale 8 1 1 2 6 7 8 4 2 8 9 10 16 xogtaa markaa haysto magacay leedahay waxaa loo yaqaanaa raw data xog ceeriin ah raw data xog ceeriin ah waxaan kaloo u naqaanaa ungrouped data xog aan grouped ahayn waxaa kaloo loo yaqaanaa unorganized data xog aan organized ahayn marka waxaa lagu amray inay organize gareyso that's the point ay soo galayso marka cibaanka muxuu yahay organize hagaaji xogta organize ka ahayn ilaa fiiri kan waa 16 kan waa 1 kan waa 8 xogta aan nidaamsiisnayn organize garey waxaa laga wadaa xogtaan ka dhig xog nidaamsan ka dhig si loo fahmi because at this time hadda qofku ma fahmi karo go-aana ma gaari karo xogta maanta waxaa u naqaanaa ungrouped data xog aan group ahaan waay so in this case waa very complicated waay in la fahmi karo in la analyze gareyn karo in go-aan la gaari ilaa xogtaasi ka dhigo xog ku diyaarsan table markaan table ku shubo ayay noqonaysaa xog diyaarsan kadib maxay si sahlan fahmi karo si sahlanna go-aan loo gaari this time waxaan dhihi karnaa waa raw data waay waxaan dhihi karnaa unorganized data waay waxaan dhihi karnaa ungrouped data xog ahaan group ahaan xogga organize ahaan xog aan nidaamsaneen marka waxaan u baahannahay xogta inaan fahmno si loo fahmo waxaan u baahannahay xogta tahay inaan ka dhigno ama table ku shubno aan fahmno meesha u badan tahay ama charta ku muujino aan fahmo charta yaa ugu dheer ama yaa ugu weyn aan go-aan gaarno marka waxaan rabnaa xogta in la fahmi karo maxay laga dhigo xog maxay xog nidaamsan oo u naqaan maxay frequency distribution table okay xaggaa markaan marayno xogta markaan ka dhigayo table ama charti maxaa loo baahanyaa kow intee ka bilaabi doonaa that's the question waxaan ka bilaabi doonaa xogtaas ugu horeyn maadaama aan ka dhigi rabo group
كسو قاد إلى مركز لعله كسو قاد waxaa noo qoran waa isticmaalka qarashka qofka qof ibn aadan shakhsi ayaa wuxuu isticmaalaa qarashka uu isticmaalo waa daily maalin wuxuu isticmaalay $6 maalinna $8 maalinna $2 maalinna $4 maalinna $8 maalinna $10 maalinna $14 maalinna $6 and so on different days waaye maybe 2 months aan bil camal wuxuu isticmaalay ayuu qoray maanta $1 isticmaalay waa qoraa laba isticmaalay saddex isticmaalay afar marka saad lagu weydiiyay saaxiibo noo sheeg lacagta isticmaashay bish soo dhaafnay maxaa ugu badnaa qof ma sheegi karo ilaa waxay xogtaan ka dhigay xog waxay naamsan oo group kadib xilay wallahi xogta lacagtaan isticmaal jirnay waxa ugu badnaa maalin heblaayo because wuxuu ku muujiyay qaabta laakiin this style kan qoranta qaabkan waxa uu naqaanaa raw data xog ceeriin waaye waxa uu naqaanaa ungroup data xogna ismaamka soo marka xogtaan inaan fahmno waa very difficult waaye marka waxaan u baahanay inaan ka dhigno xogteena xog nidaamsiisan oo ku diyaarsan frequency table iyo chart kadib aan fahmaan heblaayo ayaa isticmaalkayga badnaa maan heblaayo uu yaraa isticmaalkayga si fahmi karnaa inaan ka dhigno maxay table oo kadib waxaan u baahnaa marka su'aasha waxay waxaan u baahnaan doonaa si xogtaani looga dhigo maxay xog nidaamsiisan waxaan u baahanahay 3 step inaan marno 3 step kadib waxaan joognaa haddii la yiraahdo xog nidaamsan oo diyaarsan step 1 logicna waay cilmina waay aqlina waay fiiriya maxaan rabnaa inaan sameyno xog diyaarsan oo group ah waxaan ka fikirayaa kow imise group ayaan ka sameyn karaa xogtaas imise group ayaan u baahannahay xogta inaan ka sameeyo step 1 waay step 2 waxaan rabnaa group kastaba maxaa u dhexeyn doono step 3 waxaan rabnaa rangiga ama heerka maxaa u dhexeeyo maadaama waxay lacag yihiin maxaa u dhexeeyo maalinta lacag badan isticmaashay maalinta hoose maxaa u dhexeeyo kasoo qaad tusaale ahaan waxaa ugu hooseeya $1 ugu hooseeya laakiin ugu badan 16 ugu badan waxaan rabnaa inaan waxay intee isku jiraan isticmaalka ugu badnaa iyo kan ugu yaraa maxaa isticmaalna ugu yaraan $1 maxaa ugu yaraan $60 maxaa u dhexeeyo $15 ayaa u dhexeyso maanta isticmaalka ugu yaraa iyo maanta u badnaa waa kay kaas range waa marka aan ku celiyo waxaan u baahannahay 3 step inaan marno step 1 waxaa u naqaana maxay waxaa u naqaanaa step 1 arigan waa hash lak waa number of groups inaan xaqiijiyo imise group ayaan ka dhigi karnaa xogtaan group maxaan ka wadnaa maadaama isticmaali jiray $1 maalin $2 maalin $5 maalin $6 waxaa rabaa inaan ka dhigo group $1 ilaa $4 waxaan ka dhigaa group maxaa le marka meeqa maalmood ayaan isticmaalay lacagta u dhexeyso $1 ilaa iyo $5 waa group marka tusaale ka wadaa okay waxaan dhahaynaa $1 ilaa iyo $5 waa group $5 ilaa iyo $9 waa group maxaa u dhexeeyo $4 maxaa u dhexeeyo waxaa rabaa should be same distancegooda hal group waay $9 ku dar $4 maxay $13 13 ilaa $17 okay kasoo qaad tusaale ahaan xag waxaan ku qoray 6 kan waxaan ku qoray 8 kan waxaan ku qoray 2 kan 1 maxay tahay marka maxaa ka wadnaa waxaan ka wadnaa 6 maalmo kan waa maalmihi waa days waay kan lacagti waay waxaan ka wadnaa 6 maalmood oo group ah waxaa isticmaalay lacag u dhexeyso 1 ilaa 5 isticmaalay 1 to 5 ayaa isticmaalnay 6 maalmood marka 6 maalmood waa group marka 8 maalmood waxaa isticmaalay qarashka maxay inta u dhexeyso 5 ilaa iyo $9 marka 8 waa group ana haro ina cadeeyo maxay step 1 waxa u bixinay number of groups marka again 2 maalin oo group ah waxaa isticmaalnay inta u dhexeyso 9 ilaa $13 one day waa group waa maxaa isticmaalnay 13 ilaa $17 marka kan waxaa noqday this is a group dadka waa dayski waa kanna maxay waa lacag marka waxaa soo koobnay in this case hadda kan dadka raaco
waxaan kusoo koobnay 1 2 3 4 afar group ayaan kusoo koobay xogtaydii isticmaalka qarashka maalinlaha ahaa ee isticmaal maxay waxaan kusoo koobay 1 2 3 4 group soo koobay marka maxay noqon doontaa sidee kula tahay haddii lagu sii taqriiban ama maxay arabina soo ogaado maxay isticmaalkayga sanadle 360 intaasoo maalmood isticmaalka ku taxan tahay how many groups u baahan tahay waa muhiim kan waa tusaale kan waxaan haysanaa intaanoo maalmood haysanaa kan waa iskala calla waxaan kusoo koobnay 1 2 3 4 afar group waaye group 1na 6 maalin waaye group 2na 8 maalin waaye group 3na 2 maalin waaye group 4na 1 maalin waaye marka this is the group waa 6 maalmood waa groupkan waaye 8 maalmood groupkan waaye 2 maalmood marka waxaan rabnaa inaan caddeyno maxay imisa group ay u baahan tahay in xogtaadii lagu arrange gareeyo lagu hagaajiyo si loo fahmay kan ugu yar iyo kan ugu badan waxaan u bixinay step 1 number 1 faham imisa group ay u baahan tahay in xogtaasi lagu hagaajiyo waxaan u bixinay step 1 marka step 1 kaas wuxuu lahaan doonaa qaacida formal because dadka ma yeeshii karaan isku maskax maan isku mentality maan isku go'aan maan marka waxaa la sameeyey hal formule in la isticmaalo qof kasta ama Afrika joog Asia joog hal formule inaad isticmaalo maxay wada keeni kara maxay hal number marka waxaan u naqaanaa qaacidada waxaan u naqaanaa 1 plus 3.33 log n this is the formula wuxuu ku siin doonaa xogta markoo fiiriyo xajmigeeda waxa ku leeyahay saaxiib waxaa kugu filan xogta in laga dhigo maxay 5 group in laga dhigo 6 group in laga dhigo 7 group and so on waxaan u bixinay how many groups u baahan tahay yaa ku sheegi doono step 1 maxaa ku heli karnaa 1 plus 3.33 log n marka waxaa jiro another way qaab kala jiro oo loo yaqaan 2 power k k power 2 taas waxaa ka roon kana fiican kana sugan qaacidadan maxaan ka baxnay step 1 maxaa u baahan tahay inaan sheego how many groups u baahan tahay xogtaada si maxay loogu arrange gareeyo kadibna loo fahmi karo kadib maxay loo analyze gareey karo maxaan ku helnay qaacidadan waa 1 plus 3.33 log n qaacidada markaan fiirno n maxaa ka wada marka n waxaa ka wadnaa how many observations you have imisa number haysta n waa kamarkii loo fiiro waxaa haysanaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 in this case markaan fiirino waxaa haysanaa 29 n waa 29 in this case and so marka in case marka waa 100 xabo waa n 100 waa imisa number haysta n waa numberku waa tiro bis meeqa haysanaa 29 maybe konton xabo waa maybe 100 xabo maybe 1 million marka inta lagu sii tirada fiiri kadibna inta gasho markaan ka shaqeynayo scientific isticmaal kadibna waxaa leedahay looga qoraysa loo garaac kadibna 29 garaac equal taawo kadibna waxaa u dhexeeya times taawo kadibna 3.33 taawo equal taawo kadibna 1 taawo kadibna equal taawo you get the number aan ku celiyo ka markaa isticmaalayo kasoo bilaab from left kasoo bilaab waxaa leedahay log 29 equal leh number soo bixi doono ka maxaa u dhexeeya derbigan waa times oo ku dhufo 3.33 equal taawo waxa soo bixi doono plus 1 taawo you get the number maybe kasoo qaad 5 lacala maxay tahay marka kama tusaale lacala kan muuhbo tusaale waay marka maxaa dhahday 5 group ayaan u baahanahay in xogteena lagu arrange gareeyo si loo fahmo loo analyze gareeyo marka habitski ilaa marka hal midna waa qalad waay waxaa qaldan in xogta aan isticmaalo group aysan xamili karin hadhow xogtaadii qalad waay hadhow waxaa gaaraysa maxay go-aan qaldan marka groupska iyana kaa tiro badanin iyana kaa yaraanin waxaa isticmaalnay qaacidada isticmaal kaada isticmaasho wuxuu ku sii number ku filan in groupska yaraadaana ma rabno xogtii noqoto sun
inay badato ma rabno noqoto barax marka waxaan rabnaa inaan isku jaangoyno maxay inta group aan u baahannahay iyo tirada saxda ah waxaan ka baxnay step 1 maxaa noo haray step 2 step 2 noo haray step 2 noo haray step 2 noo haray step 2 noo haray waxaa laga wadaa range rangiga waa heerka uu gaarsiisan yahay baaxadda baaxad range waxaa ku helnaa badanaa maxay maximumkii ugu weynaa minus minimumkii ugu yaraa waa tirooyinka lagu siiyey kee ugu weyn kee ugu yar lacagna waa da'wa yaa ugu da'weyn yaa ugu lacag income waa yaa ugu badan yaa ugu yar marka kala gooy labadaba this case markaa imaanay halkaa maxay waxaa noogu lacag badnaa maanta isticmaalnay $16 $16 waxaa noogu yaraa maalinkaa isticmaalnay $1 marka rangiga meeshaas ku jiraan labada lacagood $15 ayaa u dhexeyso isticmaalkeena ugu yaraa maxay kii u badnaa kaas range waa waxaa kuu soo haray numberka ugu dambeeyo waxaa u naqaanaa maxay waxaa u naqaanaa class interval waxaa loo qoraa CI waa class interval waxaa loo qoraa CW waa class width balacwa waxaa loo qoraa CS waa class size inta waa same saan waa loo qoraa saan waa loo qoraa iyo saan waa class interval class width iyo class size marka step 3ga muxuu tarayaa that's a question muhiim waa because waa inaan fahmno every step why every step hay inaan fahmno maxay why loo sameynaa ka maxaa rabnaa why kan loo sameeyey in la ogaado xogtaadii imise group ayaa ku sameyn karnaa ku hagaajin karnaa si loo analyze gareeyo maxaan fahmnay step 1 waan keennay step 2 waxaan maxay inaan ogaano xogtii lagu siiyey maxay isku jiraan highestiga iyo lowestigana waa sameynay step 3 wuxuu kaa caawin doonaa maadaama in this case 5 group ku heshiinay each group maxaa u dhexayn doono group kasta ila fiiri xogta markaa 5 xab ku sameynaa waxaan rabnaa inaan ka bilaabay inaan sameeyo group 1 group 2 group 3 group 4 group 5 marka ay 5 group kulli ku soo ururaan xogtan aan haysan maxay oo ahaa $1 ilaa iyo $16 waa inay kulli ku jiraan maxay in this interval waxaan ku heshiinay 5 group oo baahan tahay waa 5 group ee ku jiraan maxay inta u dhaxayso $1 kii ugu yaraa ilaa maxay CC ka badnaa marka waxaan ka bilaabi doonaa $1 ugu yaraa soma waa first group way laakiin marka su'aal marka hadda $1 ka bilaabo tolow ilaa $4 ma geeyaa wax meesha yaalo waa $5 ma geeyaa wax meesha yaalo waa $6 ma geeyaa wax meesha yaalo waa marka waxaan rabnaa inaan ogaano step 3 wuxuu ka caawin doonaa first group intuu ku sameeya number ahaan waxaa u naqaanaa class interval ama class size classka groupka ugu horeeyo muxuu yahay size marka mararka qaar waxaan dhihi karnaa class marna waa group waa same maxaan dhihi karnaa ardaydan waa same class ardaydan waa same group marka waxaan isticmaalnay group interval waa dhihi kartaa group width waa same marka class group waa same marka waxaan rabnaa first group intee ku simnaan doonaa waa step 3 waay maxaa u naqaanaa waa class size iyo class width marka waxaan ku heli karnaa step 3gaas waxaan ku heli karnaa range qiimihii soo baxay oo loo qaybin doono number of classkaaga number of groupskaaga range meeqaasta 15 كم يقاسوا شيء كم عصوا شيء كم ما يقاسوا شيء 5 مع صوب بحضي 3 محيط أمريكا interval كل حين دون each group و 3 3 و هذا وين كبلاو وين ما كبلاو كان و 4 أنت محاول أمريكا 3 سيكون قاتي وحالة 4 minus 1 و 3 مركا interval كاي و 3 مركا again 4 كبلاو إلا 7 و كم حاول حاجة و3 7 كبلاو إلا يمحي إلا 10 و كم حاول حاجة 3
10 كبلاو إلا 13 واي كم حاول حيو 3 13 كبلاو إلا 16 واي كم حاول حيو 3 أوكي حكتم كلها ونو يا أبو يرى نمبر 1 هل دولار أو يرى وكنا يا أبو بدنا 16 أو كجرا مركوحان فهمني مركوحان ربنا حكتم كان فيرنا وحنو باهنان دونا إن نسميه 5 جروب جروبس كاسمين دون وير هل دولار وحاجو بدن $10 صح يا وير هل دولار محاجو بدن 16 أوكي على جروب محاول حيو $6 يكون شيء استبتري تري حكون هاي 8 جروب محاول حيو دون هاي $6 مركب وان خرا وحنقول ده 3 و4 واي 4 سعلي حنقول ده 3 7 واي 7 سعلي بلاس 3 10 واي 10 سعلي بلاس 3 13 واي 13 سعلي بلاس 3 16 واي معنا كبحنا 16 ayaa ugu sareeyo lacagta isticmaalay $1 ugu hooseeyo lacagta isticmaalay had maanta waxa fahmnay markaan sameynayno xog quantitative ah isku hayacsan oo raw data ah oo xiriina markaan ka dhigaa xog diyaarsan oo ku jirta table waxa u baahan tahay koow in la fahmo saddex step 1 oo ah xogtaas laga dhigaa group imis group u baahanahay step 1 waa groups kan diyaarin doono yaa ugu yar yaa ugu weyn step 2 waa وماكسيمم كيو مينيمم ستيب 2 هكذا معك بلاوي كيو ويرا معه جيسي كيو وينا معه كل شيء شن جروب هكذا جروب 1 جروب 2 جروب 3 جروب 4 شن جروب باي يكون شيء ستيب 1 على جروب حاول حيو $3 يكون شيء ستيب 3 وحاول $1 يكون شيء ستيب 2 وحاول وين $16 يكون شيء ستيب 2 معك بحني markii la diyaarinayo tabelka hay lagu shubo xogtaadi waxa u baahan tahay inaan sameeyno saddex step 1 step 2 step 3 step 4 kadib maxay aan aadno maxay in xogteena aan ku shubno tabelkii kadibna maxay aan ku sameeyno maxay frequency chart aan waxboona kadibna aan markaan gaari karno xogtaan saan u taalo maxay ma fahmi karno maalmaha isticmaalay lacag yar lacag badan ilaa xogtaan ka dhigo حق جروبه محاوبة أنتي سدح يستبنا مرة كدي محاسمة كرنا إن كدي محي تابل كشبه كدي ما مش كدرامو ما مين عطوا يرا ما مين وبدنا أنصون كدي جوان جارو كدي محي أن كدي محي قاب تابله أن كدي كم كباسنتين حاجة سنجو تانجو